waa mahadsantihiin gudoomiyaha aqalka sare sidoo ka dhawaajiyay wali waxaa taagan khilaafkii labada golaha shacabka golaha aqalka hoose iyo aqalka sare taas waxay u muuqataa in gudoonka golaha shacabka ay wali ka warwareegaya in xal laga gaaro labada gole sababtoo ah waxaa noo taalo oo na sugaysa mas'uuliyad weyn oo ah in sharciyada wadanka ay qayb ka tahay in la fuliyo gudoomiyaha aqalka sare waxa uu qoray guddi oo u xisaaray arrintan aqalka sare iyo golaha shacabka in xal laga gaaro wuxuu u gudbiyay madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya wali qaybtii kale ee golaha shacabka wax dhaqdhaqaaq may muujin taasna waxaad moodaysaa in ay rabaan inay sii huriyaan khilaafka jira ee labada gole annaga haddaan aqalka sare waxa naga saarantaa mas'uuliyad badan arrimaha wadanka walina waxaan leenahay waxa loo diyaar yahay in xal laga gaaro hadduu alla idmo gudoonka golaha shacabka khaasatan waxa mas'uuliyad ka saaran tahay in xalka gaarista arrintan ay go'aan weyn ka qaataan aysan noqon arrinta labada gole wax xifaltan ama isku dheerin u eg in lagu sameeyo marka waxaan leenahay mas'uuliyadda saaran yeysan gabin dalka shaqooyinka u yaalan yeysan ka dhigin wax gabaabsiya ama istaagtaag ah si sharciyada wadanka yaalo aan uga gulgaarno si aan guul uga gaarno xeerarka dastuurka dhamaystirkiisa iyo arrimaha doorashooyinkeena yaallo inuu dhameeyo gudoonka golaha aqalka sare iyo golaha aqalka sare waxa ka go'an xal laga gaaro guddigina waan magacawnay muddo laga jooga 2 isbuuc waxaan idinkaga mahadcelinaynaa ka soo qaybgalkiina aad u mahadsantihiin salaamu calaykum